بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحسن إذا شئت سهلا. مالك الدويد احنا كسو هذا الله أبي ذر يو عدي بن حاتم احنا كسو هذا الله لبنين ورنتي آدو ووينها ما أنت وحا نقبل عابا إن هدي الله إلهدو تاريخ ديني تحانا هايد عبد الله بن ابن مكتوم. عبد الله بن مكتوم وحوها مؤدنين رسول كميت كاميرا ساقيا بلال بمؤدمينها نين اندولان وها مكتوم يعني سحويا وقفا اندبلها من اندبا إلهي أنو سمين با وحي لهذا المفسرين تقرانه رجل أعمى أنزل الله في شانه 16 آية طوليت وستظل تطلع مع كر الجديدان نين اندولان وإلهي أرنتيسا كسو دجيه 16 آيات oo quraanka kamid ah aayadkaas oo la akhriyo doona inta dunyada jirto tolowo ayo ninkan lagu canaantay nabiga sallallahu alayhi wasallam ee 7 sano korkeeda canaantii ugu adkayd ee wax xanuunka kulay nabiga daraadi loogu canaantay waayo qofka uu jibriil oo amiinkii ilaahay inuu qalbigii nabiga uga soo dago waxyi uu ku soo dajiyo waxyi la yimaado wa Abdullah ibn Maktum oo muadinkii rasuulka sallallahu alayhi wasallam. Abdullah ibn Maktum waa reer Makka Qurayshna uu ahaa isaga iyo nabigana qaraabo ayaa ka dhaxaysa xagga Khadiija oo Khadiija iyo habar wadaag la ahaa radiyallahu anha. aabihina waxa la yiraahdaa Qays waxa la yiraahdaa hooyadii أبيه وحل إلى قيس بن زائدة ويدين وحل إلى عاتكة بنت عبد الله بن إلى وحل أورنجري أم مكتوم بال أورنجري هو يدي لقول نانيس جري وحل إلى سوا بلا عندا أيود الشيء. عبد الله وحو جوجو وهايو جوجي بلوغي إسلامك إلهي مركبة qalbigiisa ayuu iimaanka u balaariyo wuxuu kamid ahaa dadkii ugu horeeyay ee bilowgiiba islaamay buu ahaa. Abdullah ibn Maktum wuxuu noolaa dhibkii faraha badnaa ee muslimiintu soo mareen kuwii dhibaatada ugu horeysay soo maray ee dhibka u adkaystay uu kamid ahaa ee balaayinka Quraysh ay soo marsiisay muslimiinta la soo darsay buu ahaa dhibkii iyo argagixii iyo dhibaatadii ay la kulmeen taasina iimaankiisa ma daciifinin iimaan bay u kordhisay iyo kitaabka Ilaahay iyo diinta Ilaahay inuu qabsado sharciga Ilaahayna inuu qaabilo rasuulkana inuu goor walba inuu ag joogo oo jeclaado. arintuna waxay ka gaadhay inuu rasuulka soo qaabilo ag joogo waxay ka gaadhay iyo quraanku sidoo xafiday ku dadaalay fursad kama aanu tagin fursad walba wuxuu rabay inuu ka faa'iideysto intii suurtagalkiisa inuu uga faa'iideysto. bal mararka qaarkood waxay keeni jirtayba in aanay asxaabta kale fursad aanay u helin ama intii ay quraanka ka xafidi jireen laban laabkeedin isagoo inuu xafido. rasuulku maalmaha kamida sallallahu alayhi wasallam wuxuu la joogay ama uu u bandhigay nimankii hogaamiyayaasha Quraysh ahaabu aad ugu dadaali jiray oo islaamka inuu fahamsiiyo uu doonayay. maalin buu markaa wuxuu la kulansanaa Utba bin Abi Rabi'a Utba bin Rabi'a walaalkii Shayba bin Rabi'a Amr bin Hisham Abu Jahl lagu naanays jiray Umayyad bin Khalaf Walid bin Mughira oo Khalid bin Walid abiyaha ragaas oo wada hadal la lahaay uu la doodayay oo nabigu islaamka u bandhigay wuxuuna damacsanaa inay uu islaamka qaataan nimankaasi oo haday islaamka qaadan waayaana inay isagii asxaabtiisa ka daayaan dhibaatada ka daayaan saasuu nabigu kala hadlay. isagoo marka nimanka nabigu la fadhiya oo sidaa iyo dooda kula jira ayuu ninka Abdullah ibn Maktum soo qaabilay kolkaasuu ku yiri rasuulka Ilaahayow ibar wuxuu Ilaahay ku baray. rasuulku markuu arkay Abdullah ibn Maktum waday indhoola oo soo tukubayo intaa weydiinaya uu ka sii jeestay nabigu wajigiisana uu ururiyay xogaa wajigiisana waxa ka yar muuqday
inaanu ku faraxsanayn waqtigan oo la hadlay ninka Cabdullah ibn Maktum wadaniimanka waaweyn ku mashquulsan yahay buu aad ayuu markaa nabigu soo tixgelin siinay uu ka sii jeestay markaa qoladii uu dees damcay inuu maaragtay wax fahamsiiyo oo diinta ilaahay uu ku sharfo ama ay taageeraan ama ay dhibka ka deystaan mar la markii rasuulku warkii uu nimanka u waday sheekadii ay dhamaatay ee uu xagga ay reerkiisa u dhaqaaq u damcay ayaa waxyiga qabtay wuxuuna dareemay in maaragtay madaxiisa xoogaa la garaacayo culays uu hayo waxa ku soo degay 16 aayadood oo ka hadlaya ninka Cabdullah ibn Maktum ka hadlaya حاول يكون بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلاها إلى لقال يا كرام برر لقال حال يقول هذا النبي وفرس إلهي أكتيس dad fara badan oo islaamayo qof islaamay waa iska ki iimaankiisu wanaagsan ba Ilaahay agtiisa mar walba sareeyay iimaankiisu wanaagsan baa qiimo badan marka nimankan odayaasha ee reerka hogaamiyaashoodii ahaaye salaadiinta ahaaye hantida haystay nabigu aad iskugu mashquulinaya uu kaga jeestay Cabdullah ibn Maktum Ilaahay agtiisa waxa uga qiimo badan in dhoolahaas Ilaahay uga qiimo badan Ilaahay markaa muxuu nabigu ku yiri عبس وجهه أرريي وتولى أوجستي أن جاءه الأعمى مركن دوله ويمد والنبي قال سأل شيء يا نبي عليه الصلاة والسلام وجه قال الرسول على الوقت سيجلس مركن دوله ويمد وما يدريك محدك وقتها لعله يزكى إنه يسوس أي ما لا يهوس نظيفنا يبحثك وقتها يقول يسوق أو يذكره أما وحقبا أو يذكره وانسوبه فتنفعه وحقبا الذكر وانده وحقبا يساك maxaad ka ogeed baa leeyahay isaga inuu iswaalinayo waanado uu qaadanayo waanada wax u qabanayso amma man istaghna kuwa iskaaftoonsiinaya waa qolada la fadhiya marka nabigu uu Abu Jahl iyo Utba bin Rabi'a Shayba bin Rabi'a kuwa kuwa iskaaftoonsiinaya fa anta lahu tasadda ayad adigu ee u banbaxdeedu xinaad u sheegtay aad rabtay وما عليك أديك كم صار الله يزكى إنه يدهنوني ويانا الدين تقادم ويانا توسنا ويانا أديك متك صارن ما إنه وضع شيء ورك وضع شيء تذكر له وذا الشيء عبد الله لكن مقاتم على تيبا يجونا إلا معلن كي وقوم ديك سور تاجني كديدم بالله وأما من جاءك كيكو يمدي يسعى يسوق دقدقية وهو يخشى يسوق إلهي كعب صنيا فأنت عنه تلاهم يا ذا يقولك كم مسقول صنت هاي بالله كي إلهي كعب سنيد يسوي إلهي كعب سنيد كوسو دقدقي بعضهم كم مشغول صنتاي كلا ماي إنها تذكر ووانين بالقول النبي سكاي العالم عندما كاسو كلها كم مشغول كادو كوي ما الله هذا لسقى كاو حشك قلنا كم مشغول فمن شاء ذكره كي دون يهكون سوى قراك وحقوقات في صحف مكرمة القرآن في صحف وحكي على مصحف أما حاشية مكرمة لكرامه مرفوعة كرلو قاضي مطهرة أو نظيفة أما ظاهرة بأيدي سفرة محن كجرة قعمها ملائكة إلهي كواس كرام لكرامه بررة أو أبارين لحية طبعا آيادات بجبريل سودة النبي كل سودة قلب جيس أرنت عبد الله بن مكتوم وإلا مالن كان الآخرية إلا ما أنتنا الآخرية دونه إلا أستيد دول كنتو جيران الآخرية مالن تعالى قبل أبو نبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مكتوم وحبا كجماعة مشغول جري كتاب ما دام لو سودتي آيات قرآن بسجد رادي لو سودتي وسود وين جري وقابل جري وأكتي سفريسين جري وحكستو ويدية باهدي سنة وقبن جري إن لقول يا ما تقول الله عن أنت النبي صلى الله عليه وسلم إلهي باكو عن أنت كوري سكيل علي نكاسو كلا إيمانك في عينك كسي جيست لقول قريش مركي دب كده هذا وبطي
رسولك يعدي المؤمنين تاعيدو دباتده ku adkeeyeen ila rasuulku uu yiri war dhulkiina u kala cararo iskaga taga Maka oo ilaa iyo Madiina qabta uu ku yiri Abdullah ibn Maktum wuxuu ahaa qolada kii ugu degdeg badnaa wadankiisii ka baxay diintiisii la cararay waa dadkii qofkii koowaad buu ahaa soo rasuulku moodan hijrooda waa qofkii koowaad buu noqdayba ninkii isaga waxa israacay Mus'ab bin Umayr labadooda Madiina wada tagay Abdullah ibn Maktum marala markuu Madiina gaaray waxay bilaabeen isaga saaxiibkii Mus'ab inay dadka isku daba maraan oo diinta baraan oo quraanka u akhriyaan oo wax fahamsiiyaan labadoodu ma ina kala dhacaynin Abdullah markaa deewa ma la soo haga ama meel loogu yimaado cidii u timaadaba uu qancinaya intaas quraan wixii Maka ku soo dago dhan xafidsan yahay marka saasuu wuxuu noqdayba safiirkii labaad ee rasuulka Madiina ee dad fara badan sabab noqday in islaamku uu noqday ninkii shalay waxa la lahaday waa maartay waa nin waxa laga yaabaa dadku inay yiraahdaan moogtay qofka inagu markuu la xaad laayahay dhagalaanta iyo inta badan maartay cagalaanta iyo lugalaanta iyo wax laga yaabaa in wuxuun loo yara maartay qowxeeyo laakiin marka ay dhagalaayihiin dadku inay dhalaayihiin waxa moodnaa inayna xaba baranayn inayna waxba qaban karaynin maaha sida arintu way baran karayaan waxbay qaban karayaan waxa dadka kale qabanayaan wax laagu ma qaban karaan laakiin waa in fursada ay heleen qofka la xaadkiisii qabaay fursada uu helay iyagana waa in la siiyo ama wax fahamsiin kara waa in la siiyo dawayna wada aragnay marka dhagoolayaal fara badan oo wax la baray iyo indhoolayaal culimo waaweyn iyo aqoon-yahano waaweyn ayaynu wada aragnayna wada garanayna kolkii Madiina nabigu yimid sallallahu alayhi wasallam Abdullah ibn Maktum wuxuu ka dhigtay Bilaal ibn Rawaah nabigu laba muadin uu ka dhigtay oo maalin walba kelimada tawxiidka 5 jeer ku dhawaaq ashhadu an la ilaaha illa allah maalin walba 5 jeer inay yiraahdaan way ku dhawaaqaan oo dadka khayrka ugu yeeraan oo khayrka ku booriyaan Bilaal iyo ibn Maktum waxa laga yaabaa inuu Bilaal eedaamo Abdullah ibn Maktumna uu aqiimo ama Bilaal uu eedaamo Abdullahina uu aqiimo sidaas baa laga yaabaa marka qaar xataa inay u dhici jirtay salaad kaliya inuu midna aqiimo midna eedaamo ay dhici jirtay waxa kale lahaayeen arrin kale Abdullah iyo Bilaal waliba marka Ramadaanta sideenoo kale xilliga Ramadaanta marka lagu jiro muslimiinta Madiina midkood eedaankiisa way iskaga suxuuran jireen oo xilli hore iska eedaami jiro eedaanka waa lagu toosi jiray midna markuu eedaamo khalaas waxba lama cuni jirin waa waqti waa salaadii baa gaadhay waa la joogsanay Bilaal saqda dhaxuska eedaami jiro eedaankiisa dadku way ku toosi jireen way iska suxuuranayeen marka waa Bilaal baa eedaamay labada qofna kala cod duwan yihiin Bilaal baa eedaamay iska wata la oran jiray iska suxuuray iska wadanayeen Abdullah ibn Maktum uu eegi jiray uu fiirsan jiray malaala markuu salaada fajriga oo dilaacu eedaamay khalaas Abdullah ibn Maktum eedaamay la oran jiray waagi baa bariyay wala laga joogsan jiray markaa mana gafi jirin arrintaas oo inuu waqtiga uu eedaamay sax xun bay ahaan jirtay salaad xilligan bay gaari jirtay maamuusida uu nabigu maamuusi jiray Abdullah ibn Maktum waxay gaadhay inuu Madiina marka uu ka maqan yahay oo isagoo ku yiraahdo madax ka sii noqo oo isaga kaga tago ninka Abdullah oo madax sii noqo dhowr iyo 10 jeer bay arrintaas dhacday uu nabigu isagoo ka maqan Madiina Abdullah ibn Maktum ninka wakiilka ka nabiga uu siihaa oo dadka sii kala xukumayo dadka sii kala saarayo had markii ma kala furanay xataa saasa warkii waxay ahayd mararkii uu kaga tagay marka mid ay ahayd dagaalkii Badar markii uu dhacay kadib ilaahay nabigiisa uu ku soo dajiyay Qur'aan amaanaya mujaahidiinta aayad mujaahidiinta amaanaya iyo inay ka fadli badan yihiin kuwa fadhiya aan dagaalka galin si mujaahidka loo dhiiri galiyo oo kuwan kalena loo dhaliilo maartay loo maxaan ku iraahdaa loo cambaareeyo kuwa garanaysa fadhiya iska fadhiya saanu noqon kuwa arintaas Abdullah ibn Maktum naftiisa saameyn bay ku yeelatay wayna ku adkaatay in fadliga Ilaahay uu ka xaraam yeelo ninkani wax fadli inuu dhaafo ma rabo sida cid walba fadliga oo hela 3 snin oo helo buu rabaa arintii ku adkaatay
كل كاس يقول رسولك إلهي هدان دقالين كري الهوان دقالين لها لكن ده عمرين دقالين كريا معها تبدأ إلهي ويديستقصوا خشوع سن إنه القرآن إلهي سود جيو تدكا الدباتات كل عضايا أما أن وحركينين أما أن عريامين إنه إلهي أرنته ده وكحض له عضايو إلهي كحض له وكد عيني إله عذردار كيغا سودج إله عذردار كيغا سودج مركب إلهي بريان سوا أخباري زيد بن ثابت باشيك زيد بن ثابت وحو كميد ahaa dadkii waxyiga nabiga qori jiray waa waxyi umar ku soo degay ka qori jiray waa nabiga ayaa wuxuu yiri nabigaan iskara fadhinay buu marka sakiinadii xasiloonidii qaban jirtay baa qabatay buu markaa bawdadiisiiba bawdadeedii ku dul dhacday buu waligay bawdada nabiga sida uu culus ma baan arag buu maalinta culays waxaan u maleeyay buu lugtaydii inay ridqantay oo baaday baan u haystay buu kolkaas la siidaayay buu markii la siidaayay buu riisaydo qor waxa qortay buu yiri la yastawi alqaaciduna min almu'minina walmujahiduna fi sabilillah masna kuwa fadhiya iyo ee mu'miniinta iyo kuwa mujaahidiinta dariiqa u jihaadaya masna qorbi buu yiri inta waan qoray buu Abdullah ibn Maktum baa kacay buu markaas uu rasuulka Ilaahay deeq qofkan jihaadi karayna ka waran ilaa inta aan soo degtay aayadii يا مسنا داس ما سودك كيف دي يا مؤمن كهاي كي جهاتم يا مسنا عليك ده كي ان جهاتم كور هذا الكيبه مو دمينين بولي زيد عبد الله ما يسوي له هذا الكيبه دمينه رسول الله سويه كان له وهذا قبطه يا لا قبطي بول رسول بوديسي بوديدي ku dhacday buu tii hore way ka culustay buu markii hore la rafaaday lugteedina burburtaan moodaya tan dambaba ka sii daran buu دبي كل كده سيدا يقولي آخر سيدا ومحط قرطة ما كده ويد وحيد قرطة آخر أنت هاد قرطة كل كاسة واحد يقولوا لا يستوي القاعدون من المؤمنين أساسا قرأ كدر بيقولوا غير أول الضرر كو عن دبعة ده هنا كده عين دبعة هنا هاي سنين هذا قف كده دبعة ليه واحد ضرر واحد طبعا دون دولة هاي هدو عريان هاي هدو قعم جوان هاي هدو دجلاء هاي لأنك سوكا عندها دجاها لحاجة وسي جيسان كرو ودعاده uu garanaya soo markaa uu dagaalami karaa laakiin uu soo galaya غير أول ضررiga kuwa haday dhibaato ayna haysanin kuwi aan dhibaato haysanin mooyaane baa leeyahay waa laga soo reebo Abdullah sidoo doonayay de markaa Ilaahay uu yaalay waa loo sheegay wax leeyahay cudurdaar baad leedahay baa leeyahay waa laga cafiyay isaga iyo dadkii la mid ka oo dhan laakiin ninka naftiisa naf weynaho kuma qanca hadana sida kuma qanacsana wali wuxuu jecel yahay inuu jihaad ka qayb qaato inuu dagaal galo ayuu rabaa oo wuxuu leeyahay war leeyba hadaad fadhidaba meesha fadli badan baa lagaaga horeeyo lagu dhaaf war waa lagu cudur daaray Abdullah dawaan uu waa lagu cudur daaray laakiin in wax lay dheer yahay un baan u maleynaya buu leeyahay oo wuxuu ku dadaali jiray inaanay dagaal dhaafin oo uu ka qayb qaato ama si uu uga shaqeeyo dagaaladaas kolkaas wuxuu oran jiray war dhageysta niman yahow aanu ninka ay dhooleen waxba arkaynin baan ahay calanka uu ii dhiiba labada saf dhaxdeeda ay joojiya de calanka waan ilaalinu leenina urdi kareen baan ahay oo ma la jabay ma lama jabiyaa la ma garanayna dhacay sheegay mooyaan war ma Ilaahay ba ku cudur daaray iska jawaab lagu oran jiray laakiin sanadii 14aad markii Umar bin Khattab uu go'aansaday dagaalkii reer Faris la galayay dawladda reer Faris dagaalkii ugu weynaa la galayay in dawladoodii la baabi'iyo oo ciidamadii muslimiintu halkaa uu dawladda goboleedeedii uu warqadaha u qoray ciidan la soo ururiyo la isugu keeno qofkii hub qaadan kara iyo kii faras wata iyo kii kaale gargaar bixin kara qof waliba isugu yimaado uu yiri ee dadkii degdeg isugu yimaadeen Madiina ee muslimiin fara badan dhaawaqii ay maqleen Faaruq ee Madiina la isugu soo ururay jiha walba la isaga yimiday mujaahidiintii meesha isugu timiday soo diyaar garooday waxa kamid ah Abdullah ibn Maktum baa kamid ah halka la tagay anoo Ciraaq ma dhawa waxa laga yaabaa in la sii socdo 20 maalmood ama bilba la sii socdo waa laga ogolaaday isaga markan waxa la yiri iska day warnayno kan in badan buu raadiyay inuu jihaad ka qayb galay kan maanta raacay daayay Umar wuxuu ciidankii muslimiinta faraha badnaa halka isugu yimid madax uga dhigay Sa'ad bin Abi Waqqas
dardaaranna wuu siiyey uuna sagootiyey ciidanku markuu qaadisiye gaadhay oo goobtii lagu dagaalamayay ah ilaa 7 baa la dagaalamayay baa la yiraahdaa meeshaas dagaal ka dhacay qoladaas sidee maroodiyaal iyo kuwa silsilada ku xidhan iyo waa balaaya isku wada xidhnayd oo saasta u soo jeeday ciidanka muslimiintana farda iyo awr iyo baqla iyo wixii hore gaadiidkii hore la yaqaaneen bay wateen ma faras baa ka hortagi kara ma awr baa maroodi ka hortagi kara maroodiga gacan dheer wee la markuu saa u soo dhaqaaqo way didaano askarigi mar rabo faraska fuushanayn oo ordo laakiin faraskii waa didaya oo balaayadan qeyladiisa ka ordaya ilaa markii dambe ninkii Qaqaac bin Amr la oran jiray oo markii dagaalku adkaaday la yiri xaqan Suuriya dhinacan uu jooga marka hore loo sii soogo lagu yiri ciidan Qaqaac oo adigu aad hogaaminayso xaqaha ka tagaan oo maaragtay habuuxi ha xoojiyaan ciidanka Saad bin Waqaas marka wuxuu sameeyay ciidankiisii markuu ogaaday in ciidanka Saadaano 40 kun ka badnayn kan Beershiyankuna ay 100 kun kor dhaafayaan ayuu ciidankiisii kun u qaybiyay meelaha 10 kun bay ahaan ciidankan uu xaqan kala yimid Qaqaac bin Amr wuxuu kun ka isku daba socda kolkay kun ka hore dagaalka galaan ee hadana kun kala soo baxay nimanku iyaga niyad jabi doonay wuri gaaladu warbalada waxa uu yimid xoojin kale hadana isagu kunkii u horeeyay uu hogaamiyay markaa kunkii ku xigayna walaalka Caasim baa hogaaminay kolkii dambe la weydiiyay war maxaad saa ugu gashay mar ciidanka 10kaad oo hal mar hadan soo wada galiyo kulliba soo ku inaga badnaa war kolkay kolba kun soo galaan wada yaacayo fardoolay oo siiga kicinaysaa de nimanku niyad jaban bandooniyatiina soo tadhacday uu soo ku niyad jaban Abdullah ibn Maktum oo xarka soo baxay markaa xiran dirac iyo hubkiisii uu dhan yahay iyo soo dhax taagay muslimiinta calankiina halay dhiibay aniga maanta waa loo dhiibay waan ilaalinayaa buu calanka ama waan ku dhimanayaa labadii ciidan baa kulmay 3 maalmood oo aad u qaraar baa dhaxmaray dagaalka oo labadii qolo wax walba ay ku dagaalameen wax walba feer xataa ay gaadhay mararka qaarkood iyo darbaaxa iyo hir iyo way dhaaftay seef iyo midi waa la daadiyay wax walba ku dagaalameen labada qolo dagaal aan horay taariikhda loogu arag ayuu yaa meesha ka yaa dhaxmaray labada qolo ilaa maalinkii saddexaad guul weyn ilaahay muslimiinta u siiyay Saad bin Abi Waqqas radiyallahu anhu waxa ku dhacday xanuun baa ku dhacay dhabarka ka dhaco uu kici kari waayay marka meel guri ah oo yar dabaq oo ka ciidanka agtiisa ku taalay ayuu guriga dhakadiisa uu aniga saaro ma dhaqaaq karayo de saa uma fariisan karayo waa inuu jiifo beerka uu jiifo marka halkan uu ciidanka ka daawanaya halkan uu ka dhawaaqay oo uu hadlayo nin baa dul taagan oo ninkaas sheegaya marka kolka wada maartay wixii ka soo baxay saasay dawladii reer weyneed ee dawladaha waaweyn kamid ahayd laga adkaaday carshiyadeedii oo de carshiyada taariikhda ugu dheeraa ee dawladda ay sameeyso kamid ahaydna meesha lagaga saaray calankii tawxiidkana dhulkii gaalada looga taagay shuhadadii guusha lagu helay waxa kamid noqday oo dadkii muslimiinta dhintay laga dhaxlay Abdullah ibn Maktum oo isagoo dhiigiisa dhax dabaalanaya oo calankii muslimiintana sidaa u qooraysan oo saa u haysta yaa loogu tagay sidaas buu Abdullah radiyallahu anhu ku geeriyooday oo uga mid noqday mujaahidiinta maalinta halka ka dagaalanta maanta waxaan ku joojinaynaa marka Abdullah kaliya oo maan ku joojinaynaa billahi tawfiiq wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh